بسم الله الرحمن الرحيم مركو غوريسا الحمد لله الحمد لله الحمد لله قوشني واقول حق ربي كتمي وهي الشعب وهي الهرقيسة ومن نمو ومداد وشعب كي وطوريه ريدي قبيلة ده واقول له ودليه هاي والله كلالهين وأقول له ودليه هاي ويودليه ريح رجيس أردن وأقول له ودليه هاي ويودليه ريح سومالان أردن قارن كيدين كم دي وحوت صوق الشين سفرة دادير إن أقولشن كانتان وحكتي ما دين مقالوين فربضن وسومالان كويا اللي يقربها وما تسنتين قار كوايدين كيدين كم دينا وحقبتين باهية قارة sida maqalka aragga iyo laxaadka waxaad soo dadaasheen in aad adkaysataan dibta aad u mareysaan in aad codkiina ay siisaan waa mahadsantiin waxaad ahayd qof weyn oo ku adag tahay inuu ku dheer galo iyo inuu ii istaago milicda waad soo u samirtay oo waad u adkaysatay si aad igu codayso waanad mahadsan tahay waxaad ahayd hooyo waxaad ii soo dayacday gurigaagii iyo caruurtaadii si aad iigu codayso waxaad ahayd umul aan afartan bixin waxaad u soo baxday inaad ii codayso waa mahadsantiin dhalinyaro waxaad iiga leexateen qabiilooyinkiinnii waxaad iiga leexateen waalidiintiin waxaa u codayseen isbeddel waa mahadsantiin waanan idiin ogahay guushani waa dhammaadkii nin kasta oo siyaasi ku ah qabiilka iyo kolba intuu qof aynaan garanayna dhex yimaado inuu tolaaya yidhaahdo oo uu kursiga iska fuulo waxaa sidoo kale ay soo gebagabaysay guushani in oday dambe uu go-aan ka gaadho musharaxaaga ama qofka ummaddan isu soo sharaxaya shacbigo waxaad jebiseen gidaaraad u weyn oo ummaddan ka hortaagnaa inay u soo baxaan hogaamiyaal wanaagsan oo nolol samayn kara maanta sida aad u codayseen waxay furaysaa jir cusub oo loo mari doono kuraasta qaranka waxaa sidoo kale xaqiijiseen inaad tihiin gob hore u weyday siyaasi geesi ah oo la hor yimaada aragtidiisa hankiisa barnaamijkiisa halkii uu kala hor iman lahaa tolaaye maanta wixii ka dambeeya qofka doonaya inuu siyaasi noqdaa waxaad u dirteen fariin ah in uu siyaasigu ummadda la hor yimaado hankiisa kartidiisa afkaartiisa mabaadi'diisa aqoontiisa halkii uu kala hor iman lahaa tolaaye iyo qabiil waxaad dirteen fariin kale oo dadban oo ah qofka aad jeceshihiin inuu maayar idiin noqdo aniguna saacaddaa laga bilaabo iyo maanta oo la joogo waxaan gelayaa dadaalkeeda in aan maayar ka noqdo magaaladan aynu jecelahay ee Hargeysa codka aad bixiseen ay siiseen waa fariin aad u dirteen madaxda qaranka waxaana rajaynayaa in madaxda qaranka iyo asxaabtuba ay qadarin doonaan rabitaanka shacabka iyo doonista shacabka waan ogahay in taageeradiina iyo codka ay siiseen ee dhan 26,299 cod inuu ugu yahay xujo weyn waan ogahay waxaad iga filaysaan ilaahay ayaan ka baryayaa inuu igu asturo waan idin jecelahay qabiilkaa doonto ahaw xaafaddaa doontana deganow aniga ayaa ku matali doona aniga ayaa baahidaada ka hadli doona aniga ayaa noqon doona hiilkaaga aniga oo ka jawaabaya inaad ii hiilisay 31 May anigana iga filo 5 sano soo socota inaan hiilkaaga ahaado waxaan ahay mudane goladeegan maanta oo huwan codkii ugu faraha badnaa ee dadka reer Hargeysa iyo reer Soomaaliland ay bixiyaan sida la ajligeed waxaan ahay mudane qaran waxaan mudane u ahay ummadda Soomaaliland oo dhan iyo gaar ahaan reer Hargeysa mana noqon doono mudane ku suntan qabiil gaar ah xaafad gaar ah
iyo koox gaara rumaynta rajada shacabku waxay ahayd astaanteennii ololaha waxaana iga go'an inaan ka dhabeeyo oo aan rumeeyo riyooyinkiinna iyo rajadiinnaba waxaan sidoo kale qof kasta oo maanta go'anaya ama tabanaya in xaafaddiisa aanu u soo bixin mudane inaanu ahay mudane matalaya isaga waxaynu kor yeeli doonaa sinaanta waxaynu kor yeeli doonaa wada noolaanshaha waxaynu kor yeeli doonaa reer hargeysanimada waxaynu soo afjari doonaa oo halgankeedii sii wadi doonaa qabiilka iyo qoloqolada waxaynu samayn doonaa reer hargeysanimo waxaynu samayn doonaa ummad la yidhaahdo somalilan oo isjecel oo isaqbashay waxaanaynu ahaan doonaa siyaasi ku soo baxay aragtidiisa kartidiisa aqoontiisa iyo barnaamijkii uu ummadda loo hortegey ilaahay ayaa mahad leh shacabkayga ii hiiliyey baan u mahadnaqayaa waxaanan rajaynayaa insha allahu tacaala tallaabada tan xigta inaynu ku guulaysanno inaynu noqonno maayarka magaaladan aad jeceshihiin anna aan jecelahay si markaasi aan u rumeeyo riyadayda si aan u rumeeyo barnaamijkii aan soo qortay si aan u bedelo hargeysa oo aan uga dhigo magaalo wanaagsan bilicsan cagaaran nidaamsan oo nadiifa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu